Bismillaahi salaamu calaykum dhamaantiin waa idin salaama akhyaarta i daawanayso maasha Allah kusoo dhawaada channelkayga mar kale video cusub insha Allah maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago qaabka aan u dhaqo kuleysada cuntada ama microwave ka u taqaanidbo qaab oo fudud oo kiimika iyo waxba aan isticmaaleynin aadna inuu nadiifinayo insha Allah daawasho wacan si ama microwave-ka oo nadiifisid ma u baahnid waxyaabo badan chemical ama shaambo iyo waxaas ina ku dhaqdid insha Allah wax basiid oo gurigaada ka heli kartid oo guri kasta ay yaalaan waaye sida ujeedin meeshaan ay igu soo diyaarsan yihiin alaabtii oo dhan waxa u baahan tahay jeex liin dhanaan oo caadi ah koob biyo ah iyo baaquli ama saxan oo loogu talagalay microwave-ka oo kuleylku adkeysan karo soo diyaarsanaysa insha Allah intaas oo kaliya u baahan tahay iyo waxa u baahan tahay oo kale maro aad ku tirtirtid oo kaliya markaad soo ujeedin saxanka biyaha ku shubaa bakeeriga biyaha kadibna liintan ku shubaa insha Allah ila socda kulay videoga ujeedin wixii dhan aan sameynayo marka ma loo baahan inaan sii faahfaahiyo indhihiina ku arkaysiin insha Allah sidoo kale marka liinta aad ku miirtid kadibna waxa laga rabaa qobka liinta inaad ku dhex ridid biyaha kadibna microwave-ka aad gelinaysaa insha Allah oo ujeedin microwave-ka soo wasakh u yahay marka hadda waan i tusaa hadhowtina markaan meeno arki doontiin indhiina ku arkaysiin insha Allah marka waxa laga rabaa inaad gelisid baaquliga microwave-ka kadibna aad u geysid 2 daqiiqo ilaa 3 daqiiqo sida microwave-ka oo kulul yahay ku xiran tahay hadii microwave-ka zaid uu kulul yahay 2 daqiiqo kugu filan hadii oo microwave-ka kuleylkiisa oo yar yahayna waa ku darsan kartaa gadaal haddana saa ujeedin maradii aan soo diyaarsada aan ku tiri lahay marada inay ahaato wax yar maro qaleel u dhow si wasaqda u tirtirto marka had waqtiga oo dhamaaday waa fiiriyeenaa hadii waqtiga okay oo yahay waxa ku ogaa kartaa qaaca ka soo baxay biyaha oo liinta marka qaacaas waxa la rabaa meesha dhan inuu qabsado oo qoyaan ka dareentid microwave-ka gudihiisa inuu qoyo markaas wasaqda kulli soo fuqaysa laakiin haduu wili qalalan yahay waxa u baahan tahay inaad ku celisid waqti kale aad daartid insha Allah microwave-ka ku celisid ilaa meesha dhan qaac ka noqoto macnaha didid camal yani aad qoyaan ay yeelato markaas ay okay tahay هذا صورة ماتي سأوجدين وقاعويا بيها ساسا ku ogaanaysiin okay ta meesha diyaarsan tahay marka ina iska ilaaliso saxanka kuleel inuu yahay in kale sababtoo waqti dheer ku jiro meesha inkastoo saxanka loo tagaday oo si fiican u kulaanaynin hadana iska ilaali biyo aad ku leeyihiin hadda marka waxa soo qaadanaysaa birt marada handilahay maradii oo qalalnaa soo qaadanaysaa kadib ma tiraysaa kulli meesha ama soo tiraysaa harjina ina ujeedin kordhan geesaha dhan meesha dhan dhaqaysa sidoo kale kama ka soo saaraya
sidoo kale albaabka ha hilmaamin. sida ujeedin qarne caadi oo tirtiri kartaa hadaa sida marsi kartaa wax kale oo tirtiri kartaa laakiin mid waxay gudaha oo wasaq zaid noqoto cuntada markii oo lagu kuleynayo marka حاجينا إنا ka faa'iidi doontiin fiidiyogan marka insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideen fiidiyogan iyo qaabka loo dhaqo cuntada kuleysada cuntada ama microwave-ka marka insha Allah video inta ka heshay like tahay iga hilmaamin waa ii muhiim insha Allah channel-keygana hadda ku cusub tahay subscribe saar oo maxaa la dhahaye nagu soo biir insha Allah asxaabteena ka mid noqo si aad faa'iidooyin badan aad ka heshid insha Allah dhammaantiin waxaan idin rajeynaa khayr iyo barwaaqo inaad ku joogtiin waxaan idin leeyahay maca salaamo.